asxaabtan oo ku shubeena soo jeedin. There you go. السلام عليكم أصحابتا maalin wanaagsan waa abshir fitness markale ku soo dhawaada channelkayga saaka waxaan rabaa inaan idin la wadaago what I eat for breakfast quraac maxaan u cunaa si aan jirkayga u dhiso kaliya waxaan cunaa idin tusi doonaa qaabkaan u samaysto sidoo kale qaar badan oo ardaydeeda kamid waxay weydiiyaan quraacdeeda oo kale markii aan sawir ka soo qaado kale groupka WhatsApp-ka ardaydeeda ku jiraan soo dhigo yes ardaydeeda dhama group WhatsApp ayaan leenahay maxaan sidee u samaysaa marka maanta waxaan rabaa muuqaalkan inaan idinku tuso quraacda aan cuno sidaan u karsado marka aan ku tagalna waxaa sugaysaan okay asxaabta inta badan quraacdeeda aniga waxay ka kooban tahay oatmeal eggs ujeedaan almonds looska noocaan ah waad garanaysaan almondska la yiraa mar looskan waxaan ku bedeshaa midka kale oo cadaanka oo cashew nutska loo yaqaan soo mar walba aad cabiraysid horta waa inaad daartaa miisaanka aad ku cabirinaysid oo 0 kaaga bilaab hadda ujeedaan miisaankiinu 0 gram ayuu ii joogaa kadib ayaan oatskayga qabsanayaa marka inta badan waxaan cabirtaa 100 gram laakiin sida taqaaniin oatska waa carbohydrate fiican waaye maanta waa axad waan nasanayaa marka maalmaha nasanaysid carbohydrate sidiisaba waxa waa jirka shidaal ahaan loo isticmaalaa maalinta birta qaadaysid sidoo kale ayuu aad u fiican yahay inaad badsato energy aad u fiican ku siinayaa wax xoogana qaadaysaa culays badana qaaday marka maadaama maanta aan train garaynaynin oo aan gym tagaynin kaliya waxaan cabiranayaa 80 grams صاحبي sida arkayseen waan cabirtay oatski qaabka waa cabiray oo aragteen soorisaan ina soo dhaawa midkan oo ii saaran yahay mobilku igu xiran yahay aad u gaaban yahay tripod dheer maaha marka soo facekeen soo qaban waa laga yaabaa marka hadda waxaa idin tusayaa eggs sida loo cabirto ayaan u samaysto soo hadda eggs waxaan ku samaynayaa maanta waxaan qaadan rabaa inta badan eggs waxaa ka isticmaalaa 2 whole eggs laba xabo oo dhameystiran iyo laba xabo aan dhexda qaybta oo yellowga ama jaalaha aan ka saaro maanta laakiin I'm taking more healthy fats so 3 whole eggs iyo 1 egg white aan qaadanaya marka saan ayaan u sameeyaa cornerkana waa ku jebinaya ujeedin marka jabo cool habadka kala qabaadana soo jebi labo halma lagu dhaafaya meesha saddex afar soo aniga waxaan jeclahay ukunta markii la shiilo wad garanaysiin ukunta qaabab kale loo kariyo ayaa jiro oo tusaale kale inaad karkarsata aniga markii la karsado si fiican iigu dhanto ma jecli heerid markii la karkariyo soo waxaan jeclahay inaan shiilo ayaan jeclahay marka waxaan idin tusayaa haddii aad shiilaysid sidee qaabka aad uga saari kartaa yellowga soo maadaama aan 4 xabo qabanay waxaan dhahay 3 xabo whole egg ayaan qaadan rabaa soo waxaan soo qabanaynaa kaliya mid ka mid ah egg yolkiska ama qaybtii jaalaha ahayd ayaan ka saaraynaa sidaad arkaysaan soo ka soo raacin inta badan ukunta proteinkeeda qaybta cad ugu jira qaybtan waxay u badan tahay cholesterol iyo healthy fats marka u jeedaan halkaas xabo ka saaray waa ogtiina u maleynaa Soomaaliya waagii hore waxa la sameyn jiray ukunta waxaa loo dhigi jiray habka iska daadi qaybta cadaanka iska daadi waxaa la daadinaya qaybta protein kale markaas qaybta fats kale kaligeeda soo reeban jiray marka waxaan sameynayaa aan ku darsanayaa
marka badinayay ospiris. Yes, ospir. Oatiskan ospir igu dar. Yes, there you go. Cusbada ayaan ku darsanaa marka waxaa sameynaa magaranaysiin maadkan waa isku qasaan ku dhaqaanda qabsanaa. Guys, aniga horta sida ogsoon tihiin Turkiga waxaan imaaday 2018 dhammaadkeedii October ama September dhammaadkeedii imaaday. Been idin sheegay wax aan karsanayo dhan halkaan ku bartay. Waa ogtiin Soomaaliya markaan joogno alxamdulillah maamooyinkii gabdhaha walaalahayna lahayn ayaa wax inoo kariya Soomaaliya soo anagu wax ma karsanaso laakiin wadan shisheeye markay imaato guys waa ku qasbanaanaysaa inaad barato sida wax loo kariyo. Okay, kana saan u toosiyo hormar si facekayga loo arko. Yes, I hope this is good. Marka alaabtan way noo diyaarsan tahay guys, waa haysanaa. Waxaa idiin soo haray oatska waa kana digsiga ayaan ku shubay soo ma aragtaan. Marka oatska waa ka sida idiin sheegay caanaha ku karsadaa, caanaha ayaan ku darayaa xoogaa adiga maybe 200 ml oo kale or 250 ml oo kale. Yes, there you go. Markaas ayaan waxaan sameynayaa waa ku shidayaa dabka marka. Yes, meeshaan isku karsanaa marka waxaa ii soo haray ukunteydii saa aragteen guys waa ii diyaarsan tahay, waa ujeediyeen waan diyaarsaday. Okay, birti aan ukunta ku shiilan lahaa waatana ayadana. Let's turn this thing on. Malkaasi I do it. Waxaa sameeyaa marka wax hal qaando u dhigmo kale ayaan birta marinayaa. Yes, that's enough. Iska ilaali saliidda inaadan ka badinin because saliidda a lot of calories ay leedahay, so we don't need marka those many calories. Sida aragtaan intaa yar ayaan ku shubtay. Waxaan sameynayaa birta ayaan kala gaarsiinayaa. muhiimada saliidan kale ayaa maxay tahay ukunta haddii aadan birta saliid marinin way ku dhagaysaa guys. So waxa ka cararayaba waa inta inaysan iiga dhagin birta soo mogidin. Marka waa kana chef Abshir cook Abshir dama kusaan waan laga dhisaa wax kariyo. marna waxaa idin la wadaagi doonaa xayadaas inta badan aniga waxaa cunaa rice, berries, weliba basmati aan cunaa. Who said like berries hadaa cunta caloola kaa soo baxayso? yacni caloosha wax kaa soo saaraya berriiska ma ahane waa qaabka iskugu dheelitiraysid cuntada. haddii saxankii dhan aad berriis keligiis ka dhigtid oo hilib berriis aa saartid, of course a lot of carbs ku jiro, so markaas calool waa kaa soo baxaysa. laakiinse hadduu saxankaaga isku dheelitiran yahay, qayb berriis ka saaran tahay, qayb khudaar ka saaran tahay, qaybna aad proteinkaaga ku haysato sida meatkii ama chickenkii, you're going to look amazing guys. yani shape-kaaga wuu qurux badnaanaya. Here we go marka waa kana eggskeeni. Let's go. waa kullaatay umaleynaa xoogaa yar aan qaacaysaa. yes, marka alaabtan waa ku shubeena saa ujeediin. ardayda qaar ka midana waxay weydiin jireen macalin ukunta oo pizza u egsa u samaysaa. waxaa idin tusayaa hadhow ukuntan markay karsanto it's going to look like a pizza. yeah guys, pizza kale u ekaanaysaa guys, waa ujeediin. marka there you go. ukunteeni si balaayi ah ayay noogu karsamaysaa oo aan caadi ahayn. hadhow waxaan idin tusi doonaa ukunta intee fuurto waxay noqonaysaa. yaa i heli karo oatskana aan fiiriyo. yes, oatskana it's almost ready. isagana oatskeenuna yes waa diyaar. kadib isaga
Yes, there you go. Intaas leewa guys. Meeqa? Guys, sida idin sheegay, I mean simple. يعني cuntadeena ma aragtay aan karsado waa iska very simple guys. Time uma baahna. Hadda sida arkaysiin oatskeeni in 5 minutes it was ready. وكنتين waatana almost ready waa ayadana. Almost ready waay. Waa quraacdaada dhan waxaa waaye 5 minutes ka yara ku diyaarinaysaa. So guys, ma u baahna aniga dab ma geli karaa. wax ma karin karaa inaad dhahdo ma baahnidin guys. This is very simple guys. I'm gonna show you qaabkaad u karsan karto quraac very healthy ah. quraac ku dhismaysid within less than 5 minutes guys. 5 daqiiqo bis ayaa ku samaysan kartaa quraac waali ah. marka xajiska la iska dhaaf guys. jikada kala inta waali samaysta. inta badan quraacda aniga samaysto laakiin cuntooyinka kale kala qaadado kale iyo birwaaga waxaasoo kale masha Allah xaaskayga ay samayso. laakiin just aniga waa mar dhow guursaday soo ka hor ana samaysan jiray yani everything. marka soo muhiimadeeda maanta aan kan u sameynayay aan idin tusayay waxay ahayd inaad barataan yani quraacdiina saa u samaysan kartaan guys. ukunteen almost ready waaye. almost ready guys. wax yaraa inooga harsan. ukunteen waa almost ready. marka waxaan sii baxsanaynaa ama sii diyaarsanaynaa oatska. Guys, here we have oatski. ujeedaan waxaan korka uga darayaa marka caano yar. caano yar ayaan korka uga daray. waxaa ku soo haray almondkeena ama lowska maanta waxaan ku darsanayaa 30 gram. lowska wuxuu leeyahay mataqaanid guys a lot of healthy fats, a lot of proteins oo leeyahay. waxyaabo badan oo u fiican yahay tusaale kale dadka sokorta qaba iyo xataa aad ugu fiican yahay. so guys waxaan helnay 25 grams. Do we have another one here? Let's look at. So no. Yes, the answer is no. No problem guys. 25 grams on one 30 grams already. So why not so EBA marker we get another marker. There you go. 25 grams. So the secret I like horta lows kana mar waxa ku bedelan kartiin mataqaana that thing ayaa ku bedelan kartiin peanut butter. marka ana hadda waxaan sameynayaa maadaama lowska wax yar oo iga yaraaday inta badan waa isku bedeshtaa labada. marka lowsku daraayo peanut butter ayaan laba qaando uga darsadaa. marka so today what I'm going to do waxa waaye ukunteen horta waa inoo karsantay iyadana si waali ah ayaan gadino. dhanka kale u gadinaynaa dhanka hoose ay ka karsantay. maanta marka waxaan sameynaa guys
hal qaando ayo peanut butter aan ku darsanay. So peanut butter kuwa maxay isaga laftirkiisa waa lows la shiiday. Almond kaas laftirkiisa oo butter ah wuu jiraa isaga almond butter loo yaqaano. So there you go. Hal qaando. Waxaa kaloo jiro a little sir yar oo ah wixii ku macaysto maxaa waa mataqaanin hani malabka soo sokor inta isticmaal lahayd malabka isticmaal. ujeedan alaab waaliya noqotay marka waxaan sameeyaa let me show you pizza kala u jarjaraa. So guys, qoraadeen waa tan marka everything here out siloski eggski iyo fruitki. Okay saaxiibayaal qoraadeen waa kaas sida aragteen maanta marka sida fudud ayaad u samaysan kartaan saaxiibayaal. hadda marka quraacda ayaa meel saareyno si aan u dhisno marka guys waa taa quraacdeeda saa u samaysanaya maanta rabay inaan idinla wadaago. I hope videogas inaad ka hesheen videogan. hadda quraacda ayaan kala tuuraya marka haka quraac fudud simple ah at the same time oo healthy ah. marka maxaa jeclaan lahaydeen muuqaalada xiga inaad ku aragtaan guys ila soo wadaaga. maxaa rabtaan inaan muuqaal idinkaga soo sameeyo. marka quraacdeeda qaabkaas u samaystaa oo quraac healthy ah oo haddana kaa caawin doonto jirkaaga inaad dhisto. So guys ha ka iloobina muuqaalka please like ku dhufo like aan saaxiibayaal yaa laga tegin ku dhufo like commentigan ku soo qora engagement yaa loo baahan yahay channelka si uu dad badan u gaaro saaxiibayaal.